shacabka koonfur galbeed Soomaaliya deegaanadaas ku dego si aan wararka ku helayno waxaa jiro dad nool oo masaakiin ah hooyooyin iyo ciyaal yar yar oo la gubay sidoo kale waxaa degmada Afgooye iyana laga soo sheegaya in khasaaro meelo goobo ganacsi ay u geysteen niman aan ogeyn heebtooda iyo halka ay ka yimaadeen intuba dawladda koonfur galbeed Soomaaliya aad baan u cambaareynayna hase yeeshee dadaal bay wadaa dawladdu waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee ku sugan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose in lagu xoojin doono wala wasiiro ay halkan ka bixi doona haddii alla qadaro si ay baaritaan guud oo ku sameeyaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaas ka dhacay sidoo kale golaha wasiirada waxay isla soo qaadeen baaqna u jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliyeed inay gacan buuxda ka geysato dagaalka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ugu jirto xasilinta iyo dejinta gobolka Shabeellada Hoose dhibaatooyinkan soo laabanayo sidoo kale golaha wasiiradu waxay baaq u jeediyeen AMISOM sektorkaas Shabeellada Hoose ciidamada AMISOM ku sugan in iyaguna ay gacan buuxda ka siiyaan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka deegaankaas ku sugan ee baaritaanka ugu jiro dhacdooyinkii ka dhacay meelahaas guud ahaanna waxaan baaq u soo jeediyeen golaha wasiiradu beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba in ay u soo jeestaan xasilinta iyo wax ka qabashada iyo dadaalka ay ugu jirto dowladda koonfur galbeed Soomaaliya gacan ballaarana ay ku siiyaan dowladduna haddii alla idmo maalmaha soo socda waxay ku xoojin doontaa wafdi wasiiro heer sare ah inay magaalada Marka tagaan baaritaanna samayn doono laakiin dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay caddaynaysaa inaanay marnaba raalli ku ahaanaynin in dad masaakiin ah oo aan waxba galabsanin oo maata ah loo dilo si arxan darri ah lana gubo hanti shacab uu leeyahay cid walba way tahay tallaabo ka qaadi doona haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa marka in anagoo wada jiro dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeed iyo beesha caalamkuba aan gobol nabadeed ka fidin doono gobolkaas Shabeellada Hoose iyo magaalada madaxiisa Marka haddii alla idmo waan cambaareyn